وبركاته دمانتي من والبجوكتان وحان ليهاي soo noqod waxaan oo wanaagsan kusoo dhawaada Jubayra official dhammaantiin aad baan idin salaamayaa meel walba oo dunida ka joogtaan waxaan in leeyahay intii xanuunsan waxaan leeyahay ilaahu caafi intii dhimatana Allah u naxariisto intii noolna ilaahay maaragtay amuurooda u sahlo haddii intaa aan ka gudbo horta aniga mar walba waxa aan aad u jeclahay in aan bulshada aan la wadaago waxyaalaha aniga aan sameeyo ama waxyaalaha aniga aan muddo badan oo aan sameynayay mar walba waxa aan wanaagsan in aad mar walba waxa wanaagsan in aad bulshadaada kugu xiran ama dadka ku yaqaano maaragtay in aad u soo bandhigto waxa adiga aad maaragtay oo anfacaad ka heshay ama adiga maaragtay gaar ahaan waxtar leh ku sameeyay dad badan oo anigu aan halkan dad badan maaragtay oo rabo inaan maaragtay aan balaayo ba waxa jira waxyaalo aysan ayaga khibrad u lahayn ama aysan u lahayn maaragtay aysan qaadan ayay intay maqlaan bileen waxa saarayri waxa la marka waxa wanaagsan in uu qofka waxa uu asaga marka hore inuu qofka asaga uu tijaabiyo marka adiga waxa aad tijaabisid ayaad ogaanaysaa manaafacaadka waxa uu leeyahay horta wax waliba bini aadan baynu nahay wax waliba maaragtay qof walba wuxuu wax la yiraahdo xasaasiyad sida loo yaqaan allergy dadna waxa laga yaabaa wax kasta oo qofka uu qaadanayo inuu ku leeyahay wax la yiraahdo allergy marka dadka bini aadanka ilaahay muusimin marka badanaa Soomaalidu waxaan dhahnaa shanta af ilaahay muusimin waa dhahnaa okay marka adigana waxa maskaxda waxa gelisaa in aad tahay ibni aadan oo wax walba maaragtay adduunkan yaala in aad ama ku qabtay maxaan ku dhahaa xasaasiyad ama si loo yaqaan allergy marka haddii wixii aad ku leedahay allergy dadka u soo bandhig dad badan waxa laga yaabaa adiga kula mid ah oo allergy ama qabaan oo kale ayaa laga yaabaa inay jiraan okay marka haddii inta aan ka gudbo waxa aan maanta halkan ku hayaa kiniini oo aad iyo aad horta ani ahaantayda i anfacay oo wax badan oo ilaahay baa isbedelka haya ilaahay baa caafimaadka haya ilaahay baa wax walba haya oo ani ahaantayda oo aan ka arkay isbedel yar waa zinc marka zinc faa'iidooyinka uu leeyahay halkan laguma soo koobi karo marka waxaan rabaa afar inaan ka soo qabto oo faa'iido uu leeyahay waa kana samara jiro baawar aqeynaya banaanka qada ay furan hawaaye aad bay hawadu kulushahay zinc waxa ka barto dhaweynaya hadhowna tawara ka qaadaya tifaac ku dunta insha Allah marka kininkan zinc aad iyo aad ba maartani ahaanteeda iyo anfacay oo maaragtay ii sheeg muxuu u fiican yahay midda koowaad wuxuu u fiican yahay kow hadaan jir ahaan aad buu u fiican jirku dhan buu aad u wanaagsan yahay kow hadaan ka bilaabo xubnaha hadday noqoto xubnaha oo dhan lafahaaga hadday noqoto wadnaha hadday noqoto beerka hadday noqoto maxaan ku rahdaa zinc wuxuu mataqaanaa uu balance dhexaad ku sameynaya haddii uu mataqaanaa uu dhiigaaga mataqaanaa uu kacsan yahay ama dhiigaaga maaragtay ayuu cuntada mataqaanaa la shaqaysiinaya aad buu u fiican yahay hurdo badan oo fiicanna waa ka helaysaa hurdo badan oo ku siinaya beeryarada ayuu mataqaanaa la shaqeeyaa dadka xamiishada ka maqato kale leukemia kaleeto wuu fiican yahay dadka maaragtay ayagana maaragtay sonkorta dhiig karka haya haddii adiga aad dhiig kar qabtid oo ku dhibayo dhakhtarka u tag zinc wuxuu u fiican yahay kow timaha waa muhiim waaye timuhu aad ugu wanaagsan yahay timuhu ayuu mataqaanaa wax tar badan buu u leeyahay siiba ragga oo kaleeto garka
garka ayuu mataqaanaa badan uu ku siinayaa oo maaragtay dadka badan way weydiiyaan garkaaga maxaa ku samaysay maxaa jubba noo sheeg dharara marka aniga waxa aan garkayga saa uma weynaan jirin saas ma ahaan jirin oo jeedaan u weyn yahay ya garkayga saas uma weynaan jirin samaha ya marka isagaa iga soo saaray wuxuu kaloo mataqaanaa wejiga ku sameeyaa xagga finanka qofka hadduu leeyahay moor finan oo finan aad kuu dhibayaan zinka wuu ku caawinaya marka maxaan sameeyaa markaa subaxii aa quraacatay way baa ka qaadanaysaa hal xabo taasay biyaha ku cabaysaa waa dhamaatay marka zinki aad buu u wanaagsan yahay waxaa ka helaysaa B12 waxaa ka helaysaa vitamin C waxaa ka helaysaa vitamin D waxaa ka helaysaa vitamin waxaa ka helaysaa adi you name it vitamina aad u fara badan ayaa ka helaysaa muhiimadda waxaa waaye wuxuu u fiican yahay aad iyo aad mataqaanaa ugu wanaagsan yahay waa timaha ayuu mataqaanaa waxtar fiican uu siinayaa hadday noqoto gar hadday noqoto madaxa korka marka anu kulley ahaantayda laga yaabo in adigu ku anfaco inuu ku anficin aniga inuu i anficin inuu i anfaco laakiin haddii ani ahaantayda waa dhaladii 10aad aan isticmaalaya waa iga dhacay waa dhaladii 10aad aan isticmaalayo marka zinc aad iyo aad ayuu u fiican yahay marka waxaan leeyahay meel walba joogtaan like and share to my YouTube channel kayga Jubayare marka waxaan leeyahay insha Allah waa inoo iyo video waxaan nimka xaniisayga nabadgelyo bye bye